gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waliba sayniska ee gobolka Togdheer Xasan Jaamac Warsame oo maanta qayb ka mid warfiyeenka kula hadlay xafiiskiisa ayaa ka hadlay muuro dhowr oo ka mid ah macallimiin bilaa mushaar wax ka dhigtay dugsiyada gobolka Togdheer sidoo kalena gudoomiyaha Xasan Jaamac Warsame ayaa ganafka ku dhuftay waqtiga loo cayimay sanad dugsiyeedka la qabanayo imtixaanaadka dugsiyada gobolka Togdheer sanad gebagabadii iyo term kii hore ee sanad dugsiyeedka 2017 oo teeramkii hore isna dhamaanayo imtixaanada teeramkii hore waxay bilaamayaan sida wareegtada aan ku firdhaynay ee ku geynay goob walba wareegtadaas oo ka soo baxday agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare oo dalka oo dhan sidaan filayo gaadhay waxa imtixaanaadka teeramka koowaad oo bilaamaya bisha January 6 oo ku beegan sabtida maanta sabtideeda dib u dhacbaana ku yimi teeramkii dib u dhacana waxa uu sabab ahaa gobolku wuxuu soo maray markii hore abaaro uu dalka deel la qabay gaar ahaan gobolada bariga markii dibana waxa uu raacay shuban biyood gobolkan iyo gobollo kale oo gaar ugu dhacay oo waliba gobolkan ku xoog badnaa Togdheer inta markii laga soo gudbayna waxa ina soo gashay doorashadii oo iyaduna hawlaheedii iyo ololaheedii iyo iyaduna wadatay ta waxa soo dhamay manhajkii loogu talagalay in teeramka koowaad la dhigo way ka go'naayeen sida awgeed ayaa dib u dhigan inay bisha January oo hadii jeer ku beegnaan jirtay fasaxa teeramka koowaad dib loogu riixay in khalad la fahmo ma kuwa ale waxba naga baqan 9 bilood baa naga 2 bilood waxay adasiin jireen hay-aduna markay muddo 4 sanadood oo kala siiso maalinta dambe waxa uu timaada in ay yiraahdaan mashruuci waa dhamaaday laga siin jiray macallimiinta gunnada marka kuwa caynkaasi waa jiraan macallin uun de markiisa horeba macallimiintu ma wada mushahareysna sidiisa uu mushahar la waa meesheeda laakiin macallin mushahar qaato mushahar ka maqan yahay ma jirto isla markaana waxa uu gudoomiyuhu ka jawaabay su'aalaha warfiyeenku ka weydiiyeen qayb ka mid ah dugsiyada gobolka Togdheer oo ay qaarkood ka muuqdaan dayac isla markaana u baahan in wax laga qabto waxa uu soo gudoomiyaha walaasi ka hadlay hadaladiisii ka mid ahaa Togdheer waa iskuulkii ugu horeeyay burca laga sameeyay waxaan la dhisay u malaynayaa 1943 in kooxdii u horeysay gashay hadii aanan qaldanayn hasa ahaatee iskuulka dhul buu lahaa weyn dhulkii waxa ku habsaday dadweynihii deegaanka uu ahaa qaarna waxa ay bilaabeen intay jiingada ka dhisteen ama wax kale ka dhiseen in oromadii laga kireeyay bilaysku uma yaraysan barasaabadu uma yaraysan laakiin waxa la yiri ruqan ninkii la hadabada hayo ma kacdo raridii dirqi lagaga raray wixii la rari karayay la damcay in deer lagu wareejiyo oo deerkii lacag loo waayo iminka dadweynaha reer burco contribution loogu dhex jiro wali si aan soo gacan gelin dugsigaas dabada waxa haya oo heer ka dhigay deegaankii uu ku yiri أحمد شام عادن أحمد دقرو مقبايا تلفزيون كعالمي قاسمنا نستيفي بورعو